waa gardarro, waa gunnimo, waa gablan, waa geeri, waa god abeeso kuwaar. Haddaan si kale u dhigno waa ciil, waa calowyow, waa caabuq, waa cimriga ha ku furto. Soomaalidu waxay ku maamacdaa rag iddaa kaagama hadho, ee aan isdayno ayuu kaaga hadhaa. Sidaas kadaaligeed waxa uu noqday mid ka mid a hubabka ugu roonroon ee loo adeegsado ummadaha. Dabcan waxaynu ka hadlaynaa waa gumaysiga oo aynu muuqaalkeenna ku lafaguri doono. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkan waa Salgaadh Media. Marka laga hadlayo macnaha ereyga gumaysi, waxa uu ab iyo isir ahaanba la wadaagaa labada erey ee kala ah gun iyo guumays, oo labadaba bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda loo adeegsado cay ahaan. Ereyga gun macnihiisa guud waa hoos, waxaa loo adeegsadaa meelo badan sida ceelka, geedka oo loo isticmaalo gun iyo baar oo ah wixii jirridda ka hooseeya. Dhammaan tusaalayaashu waxay tilmaamayaan hoosayn, halka ereyga guumays uu la micno noqonayo ereyga qiimo dhaca. Ereyga ayaa inta badan loo adeegsadaa dadka waaweyn, siiba haweenka guurka ka daahay, kaas oo la micno ah in qofkaani uusan lahayn qiimihii uu ahaan jiray ama ay ka suushay shabaabnimadii. Si guud, ereyga gumaysi ayaa iskugu biyo shubanaya xaqiraad iyo in kuwa la gumaysanayo ay la mid yihiin waxaan qiimo lahayn. Gumaysigu waxa uu kala nabaxaa laba nooc oo kala ah: gumaysi ruuxi ah iyo mid jidheed. Gumaysiga jidhku waa in qofka la kaantaroolo jidh ahaan oo aanu xor u noqon dhaqdhaqaaqiisa jidheed, halka gumaysiga ruuxduna yahay in qofka dareenkiisa, fahankiisa iyo doorashada qofkaba la kaantaroolo. Dadka waa la kaantarooli karaa jidh ahaan, oo qasab iyo awood waa lagu muquunin karaa, laakiin qof walba waxa uu xor u yahay inuu ruuxiyan xor ahaado, xataa haddii uu maxbuus yahay. Inta badanna ma dhacdo in bulsho muddo dheer jidh ahaan loo gumaysto, se waxaa dhacda in bulsho muddo ka badan qarniyaan ruux ahaan loo gumaysto. Marka ay dadku maskaxiyan aqbalaan gumaysi, waxay noqdaan dad hamrada oo aan isku kalsoonayn. Waxay noqdaan dameeradhaan raacday oo aan ku dhiirin curinta iyo dhaqangelinta fikradahooda, laakiin uga dambeeya fikradaha iyo fulintoodaba sayidkooda. Qof ama bulsho muddo waa laga awood roonaan karaa, laakiin aqbalidda gumaysi ayaa ah ka raadka xun iyo cawaaqibtaba leh. Gumaysiga ruuxda waxa uu hirgalaa marka bulsho la jeclaysiiyo fikradaha, alaabta iyo waxbarashada cid kale leedahay. Calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto in bulsho ruux ahaan loo gumaystay ayaa ah in bulsho ka faanto isticmaalka iyo kobcinta afkeeda, misena ay ka doorbidto afafka kale. Innagu ka Soomaali ahaana waan ognahay xaalkeena. Gumaysigu waxa uu curyaamiyaa oo ragaadiyaa hal abuurka, hamiga, wuxuuna qofka ka dhigaa mid dabacsan oo hoggaansami og. Gumaysiga maskaxdu waxa uu qofka bartilmaameedka ah dareensiiyaa inaanu xaq u lahayn inuu u fakiro si xor ah oo hal abuur ku dheehan yahay, waxaana uu moodsiiyaa in qofka la gumaysta ahi uu ka sarreeyo ama ka mudan yahay. Addoonsigii iyo gumaysigii lagula kacay dadka madow qarniyadii 15 ilaa 19 waxay soo martay xaalado kala duwan, oo mustawaha ugu hooseeya wuxuu ahaa in dadka madow lagula kala iibsado meelo ka mid ah Afrikada Dhexe, kadibna loo sii daabulo Ameerika iyo Yurub. Waxaa loo geysan jiray tacadiyo xuquuqda aadanaha iyo tan xayawaankaba ka baxsan. Hadhaaga ka badbaada dhibaatada safarkana markay gaadhaan meelihii loo maday, waxa uu bilaamayay gumaysigii dulleysiinta iyo aqbalsiinta inay yihiin qaar ka hooseeya kuwa gumaysanaya, oo sidaana badankood ugu hoggaansamayeen shuruucda loo dhigay ee midabta koorka ahayd. Sideedaba, mid dambe iyo mid horeba, gumaysigu ma guulaysto haddii aan cid ka mid ah kuwa bartilmaameedka ahi qaar gacan saar la lahayn. Waxaa la laalushaa ama baqdin xad-dhaaf ah lagu beeraa in badan oo ka mid ah kuwa la gumaysanayo, sida halgamaagii caanka ahaa ee Nelson Mandela ku sheegay buuggiisa Long Walk to Freedom. Gumaysigu ha kala baaxad weynaado, se way badan yihiin. Bulshooyinka dhaqamadoodu fududeeyaan in dadkooda aqbalo gumaysi dhexdooda ah iyo mid dabadeedba. In bulsho gumaysi ku fulo waxaa saldhig u ah 3 arrimood: 1. Xukun jacayl, baahi bilaa qayim ah iyo mabda' la'aan. Dalalka xaaladan ku sugan ama aan dheheen la gumaysto, si dadban iyo si toosba, waxaa dadkooda loogu tijaabiyaa dawooyinka, cuntada iyo wax kasta oo la doonayo in laga hubiyo dadka isqiimeeyey. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeennan. Haddii uu muuqaalka ku qanciyay, like saar, siina sheer gare. Haddii aanad weli nagu soo biirinna, nagu soo biir.